عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, verily Allah Ta'ala has said, whosoever shows enmity to a wali, friend, of mine, then I have declared war against him. And my servant does not draw near to me with anything more loved to me than the religious duties I have obligated upon him. And my servant continues to draw near to me with nafil, supererogatory, deeds until I love him. When I love him, I am his hearing with which he hears, and his sight with which he sees, and his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask something of me, I would surely give it to him, and were he to seek refuge with me, I would surely grant him refuge. Narrated by Al-Bukhari. waxaa laga wariyey Abu Hurayra eebbe ha ka raali noqdee inuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi eebbe kor ahaaye wuxuu yidhi kii cadowtimu u muujiya mid ka mid ah awliyadeeda dagaal buu iga mudan yahay. ma jiro wax aan ka jeclahay inuu addoonkaygu igu soo dhowaado uusan ahayn waxaan faray. addoonkayga wuxuu ku sii wadaa inuu iigu soo dhowaado cibaadada mutadawacnimada ah ilaa aan jeclaado isaga. markaan jeclaado isaga waxaan u noqon addoonkayga maqalkiisa uu wax ku maqlo, iyo araggiisa uu wax ku arko, iyo gacantiisa uu ku qabsado, iyo cagtiisa uu ku socdo. hadduu i weyddiistana waan siinayaa, hadduu magangayga iga dalbadona waan magan gelinayaa. waxaa wariyey Bukhaari.